Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan daawadayaasheena ku taxan page-keena soo dhawaada dhammaan asxaabay caawin hadduu ilaahay yiraahdo sida xalay aan idinka ballan qaaday barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo xalay waxaa idin dhahay MCH-ka maternal child hospital-ka wuxuu ka kooban yahay ilaa dhowr xarumood oo ka mid ah OTB-da sidoo kale waxaa ka mid ah wax loo yaqaano SFB-da sidoo kale waxaa ka mid ah wax loo yaqaano laboratory-ga intaas dhan marka aan ka hadli doono hadduu ilaahay yiraahdo caawa waxaan ku soo qaadanaynaa wax loo yaqaano outpatient therapeutic program OTB laga soo gaabiyay marka waa muhiim inaad fahansan tahay waxyaabaha laga soo gaabiyay OTB-da waayo xarun kasta waxyaabaha laga soo gaabiyay waan sheegi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo marka OTB waxaa inta badan objectives of OTB-ga ahdaafta laga leeyahay waxay tahay OTB-gan OTB bukaan noocee la geeyaa waa arki doonaa insha Allah OTB waxaa la geeyaa patients with severe acute malnutrition waxaa la dhahaa bukaanada severe acute malnutrition nafaqadarrada zaa'idkeesa marka nafaqadarrada oo saamka waxaa loo kala qaybiyaa labo some with complicated iyo some without complicated marka saamka waxaan ka soo gaabanay severe acute malnutrition marka waxaan dhahnay saamka qudhiisa waxaan u qaybinay labo oo ah some with complicated some without complicated marka OTB-da waxaa la geeyaa bukaanada ah some without complicated waatanab waxaa la geeyaa severe acute malnutrition with present appetite-kiisu wuu fiican yahay bukaanka OTB la keenaya no medical complication wax oo calaamad caafimaad darro ahna ma lahan marka bukaan noocaas ayaa la geeyaa waana safiya laakiin appetite-kiisu wuu qaadan karaa laakiin no medical complication ma lahan sidoo kale can be treated as OTB community in through OTB ahaana loogu daaweeya the patient attends wuxuu imaadaa OTB bukaanka wuxuu imaadaa once per week isbuuciiba hal mar wuu imaan karaa or mise once every 2 weeks labadii isbuucba hal mar ayuu imaan karaa to assist si loo kormeero treatment daaweynta or evaluation si loo qiimeeyo to receive inuu helayo the therapeutic foods cunooyinka looga talagalay OTB-da iyo drugs iyo daawooyinka until the next visit ilaa laga gaaro boogashada labaad hagaag marka ahdaafta kale laga rabo OTB waxaa ka mid ah qofka the carrier provides treatment for the patient waxaa loola jeedaa qofka cunuga wada oo xarunta OTB marka cunooyinka la siiyaa marka carrier providers la qofka wax siinayo the treatment the carrier provide the treatment qofka daaweynaya bukaanka for the patient bukaanka every day at home waa inuu ku siiyo guriga following ayadoo waliba sii raacayso indications for the OTB staff ayagoo ka warqabaya shaqaalaha staffkana xaaladiisa caafimaad sidoo kale objective laga rabo waxaa ka mid ah OTB management severe acute malnutrition waa soo sheegnay wixii manage karaysa severe acute OTB waxaa lagu daaweeyaan dhahnay bukaanada ah severe acute malnutrition oo waliba ah without complication appetite-kiisuna uu fiican yahay is to increase si sare loo qaado access-na loona gaaro treatment daaweynta sidoo kale establishment in loo aasa appropriate facilities waxyaabaha ugu fudud with or closer to more communities ee bulshada la siin karo sidoo kale system community mobilization waxa la jiro community mobilization in bulshada la wacyigeliyo must always be organized in koox loo sameeyo oo la abaabulo to screen waxa la si loogu soo sameeyo screening waxa la muwaagi wixii dhan si loogu soo sameeyo si in order to monitor marka screening marka la sameeyo monitor waxa la kormeer waxa la ogaanayaa qofka severe acute malnutrition iyo qofka aan ahayn iyo follow up daba tixraac in lagu sameeyo malnutrition children caruurta nafaqadarrada hayso ku sugan in the community bulshada dhexdeeda sidoo kale good communication mobilization in la sameeyo barnaamij community mobilization will help you ka caawinaya to identify inaad adiga soo aqoonsatid children at early stage in their progression caruurta nafaqadarrada hayso in mar hore soo ogaato sidoo kale will reduce ina hoos u dhigto the number tirada requiring u gudbi lahayd transfer to OTC macnaha waxaa lahaa OTB-da bukaankii ku dhaco waxaa la geeyaa waxa loo yaqaano SC la geeyaa marka OTB-da bukaanka si uusan OTB ugu gudbin banaanka markaad tagtid waa inaad ku soo ogaataa mar hore soo ogaataa
sidoo kale waxaa jira waxa loo yaqaan fixed or mobile teams. Fixed or mobile teams waa koox la dirayo abaabulayso si xarumaha qaar ayaa leh si ay banaanka waxa la ama outreach la si ay banaanka ugu soo sameeyaan baaritaan. The OTB that should ideally inta badan be organized waxa loo abaabulo as a part of MCH loo ibada activities in health centers ee howlaha laga qabanayo xarunta. However, si kasta in some areas goobaha gaar with low access aysan helin into health facilities waxyaabo u fududeynaya it is implemented waxa loo independently ayaa loo hirgeliyaa. Okay, in both case labada xaalad the treatment the team of OTB da kooxda OTB da may be fixed waxay aantooda kugu cayiman they always work waxay ka shaqeeyaan same center xarun isku mid ah. Asxaabay aad baa u mahadsantihiin weli faraka ma qadano waxaan joognaa kaliya waxaan qaadanay objective laga leeyahay OTB it means ahdaafta laga leeyahay OTB maxaa waa inay ila ogaataan main pointing ugu muhiimsan oo ah OTB sideeda waxa lagu daaweeyaa bukaanada severe acute malnutrition oo loo soo gaabiyo SAM ka laba loo kala qaybiyaa SAM with complicated iyo SAM without complicated. Waxa lagu daaweeyaa SAM without complicated ka ayaa OTB la geeyaa asigoo lahayn wax oo complication ah sidoo kale appetite-kiisu uu fiican yahay. So admission criteria iyo discharge criteria iyo waxyaabaha lagu bixiyo xaruntan casharadeen dambe ku soo qaadan doona aad ba u mahadsantihiin asxaabay thank you very much.